waxaanu xisbi ahaan hay'adda shaqaalaha dawladda u gudbinay tiro shaqaale dawladeeda oo isugu jira agaasimo waaxeedo iyo shaqaalo ka tirsan wasaaradaha qaranka oo kamid ahaa ergooyinkii shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo qayb galay sida uu tilmaamayo qodobka 6aad fiqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 796 wuxuu si cad u sheegay in shaqaaluhu hogaamiye ama xubin firfircoon xisbiyada siyaasadda ka mid noqon oo aanay asxaabta qaranka ku milmin mucaarad iyo muxaafid midkoodna shaqaalaha dawladda qaranku waxay si weyn uga muuqdeen shirkii afraad ee xisbiga kulmiye oo moodaysayba inuu ahaa shirweynihii shaqaalaha dawladda Soomaaliland xisbiga kulmiye muu ixtiraamin xeerarka iyo shuruucda qaranka u taala taasoo si cad ugu diidaysa shaqaalaha dawladdu inay sina ugu milmaan kamid noqoshada asxaabta qaranka waxaynu inta badan maqalaa hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe oo gudoomiyaha ka yahay iyadoo lagu anshax marinayo shaqaalaha dawladeed oo dad badan hadda lagu eriyay in ay aragtidooda si uun baraha bulshada ay uga dhiibteen fikir waxaynu eegaynaa talaabada uu qaado iyo in uu sharcigu shaqeeyo oo uu ahaado mid mucaarad iyo muxaafid cid kasta oo shuruucda ku gaftay qabanaya taana waxaan uga fadhinaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha runtii gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muu ixtiraamin shuruucda iyo qawaaniinta qaranka u yaala waxaan uga faa'iideeyay xisbiga kulmiye dhaqaalihii qaranka waxaana ku milmay oo ergooyinka kamid ahaa shaqaalihii dawladda ee inta badan uu madaxweynuhu ku celcelinayay inaanay sinaba uga mid noqon karin ee uu soo jeedinayay agaasimayaasha guud ee wasaaraduhu inay yihiin adeegayaal bulsho ee aanay ahayn xubno siyaasi ah oo fulinta oo matalaya dawladda waxa runtii iyaguna ka muuqday oo ay foolxumo weyn ahayd hay'ado gaar ah oo iyaguna ixtiraam mudnaa oo aynaan garanaynba sida ay dhex ugu noqon karaan hadhow saddexda xisbiye bulshada oo kamid ah komishanka xuquuqda insaanka qaranka oo xubno kamid ay shirka fadhiyeen oo ay kamid ahaayeen dadkii joogay waxaana muhiim ah qofka mas'uulka ee halka gaaray ama shaqaalaha noqday inuu labada mid uun aamino ugo ama inuu noqdo adeega bulsho oo qarankan iyo dadkan cashuurtooda ay u tahay mushahar iyo masaariif ama in uu galo xaq buu qofku u leeyahay xisbiyada qaranka inuu kamid ahaado waxa runtii isagana aad moodaysay foolxumo weyn ahayd safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti oo isna ergay ahaa oo aad moodaysay inuu yahay safiirka inuu yahay gudoomiyaha xafiiska kulmiye u fadhiya Djibouti safiirku astaan qaran ummadda Soomaaliland dalbu ku matala waxaanu aaminaynaa xisbi ahaan u qaadanayna maadaama uu ergooyinkii kamid ahaa oo ku milmay xisbiyadii uu kamid yahayna inuu xafiiska kulmiye dalka Djibouti qaabilsan yahay ahayn safiirka Soomaaliland u fadhiya Djibouti ixtiraamka iyo dawladnimada iyo haybaduna waxay ahayd in uu sidaa yeelo ayaguna kamid ahaa agaasimayaal guud oo shaqadii soo beelihiyay oo aanay iyagana haboonayn sida uu madaxweynuhu in badan sheegay ee aanu ka soo xiganayno inaanay ku milmin oo aanay ka mid noqon xisbiyada qaranka haddii ay doonayaan xisbiyada ka mid noqdaanna ay xilalka qaranka u hayaan iska soo casilaan oo ay ku soo biiraan siyaasadda asxaabta waxaanu anagu aaminsanahay oo aanu ka soo horjeednaa shaqaalaha dawladdu inaanay marnaba ku milmin saddexda xisbi qaran oo ay ixtiraamaan qawaaniinta qofku xaq buu leeyahay inuu codeeyo markii se gaadho taasi weeye laakiin sinaba looma aqbali karo inuu xisbiga kulmiye takrifal awoodeed mid dhaqaale iyo mid shaqaale midnaba uu ku sameeyo shaqaalaha dawladdu xisbi ahaan waxaanu anagu aaminsanahay oo aanu qabnaa in tayadooda kor loo qaado mustaqbalkooda iyo noloshooda wax laga bedelo oo ay helaan adeegyo caafimaad oo mushaharooyinka loo kordhiyo ma se aaminsanin marnaba
in xisbiyada siyaasadda loo adeegsaday ka mid noqdaan waxaanaanu u soo jeedinaynaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha maanta laba miduun bay noqon guddoomiyadda hay'adda shaqaaluhu inuu shaqaale weynaha dhex u yahay oo shaqaalaha looga dhadhansado ama loo arka inay afkaar mucaarad ah gudbinayaan inaanu keligood anshax marinta iyo xeerka shaqaalaha dowladda qodobka lixaad aanu ku dhicin shaqaalaha kale ee xisbiga kulmiye ku milmee ka mid noqdana aan lagu abaalmarin oo aan lagu dallacsiin oon iyaga loo arkin inay xaq u leeyihiin xalaal lahayd waxaanaanu anagu aaminsanay shaqaalaha dowladda Soomaaliland inay siyaasadda ka madax bannaayeen waanu diiwaangelinay waxaanaanu samaynay documenti hay'adda shaqaalahana waanu gudbinay waxaanaanu rajaynaynaa inuu eegno talaabada uu qaado guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe taasaanu eegaynaa aadna waa mahadsantihiin